ayaad marka ugu horeysay fanka bilowday fanka anigoo yar ayaan bilaabay wish haye ubaxa gacankan ka bilaabay gaalkacyana ka bilaabay haye waan yaraa markaan fanka bilaabay iyadu 12 sano meelahaas 10 meelahaas jiray haye markaan bilaabay fanka adigoo yar ubax kacana ku soo bilowday gacan baan ka bilaabay aniga magaalada ka bilowday marka gaalkacyan ka bilaabay waa meesha aad ku dhalatay adiga ma sha Allah kadib sidee marka fankaagi maadaama ubax kacanka ahayd aad maarto waladu waa bari sideed ugu soo birtay waxaan ugu soo biray runtii magaalada gaalkacyo anigoo markaas soo baxay ubaxa weesaan noqday ayaa nin barasab gaalkacyo looga soo dhigay dhintay Allah naxariis Axmed Sigulo Xirsi ayaa warqad ii soo qoray wuxuu yiri xamar fanaaniintii xamar tiyaatarka xamar ku diray tiyaatarka xamar soo aaday Maxamed Nuur Shariic oo jooga tiyaatarka haysta Allah naxariisto ayaan u imid ninka imtixaan laga qaaday marka fanaaniin marka fanaaniin baa imtixaan laga qaaday cusub inta aadan horta aan u gelin sida ay ahayd waxaan ogsoonahay ma aragtay in markii ugu horeysa fanka waalidiinta Soomaaliyeed ay qaladaad badan ka fahansanayeen sidee u arkeen waalidkaaga in ma aragtay aad fanaan noqoto oo fanka aad sii wado wallahi aniga hooyadayda anoo yar bay dhimatay runtii ma garanayo laakiin aabahay asaga fanka jeclaaba walaalahay oo dhan runtii fanka abday jecel hadda walaalkay baa aniga heesana sameeyay heesana Soomaali jooga oo heesaha aad u sameeyaa joog jira marka waalidkay fanka waa jeclaayeen marka ma sha Allah ayaga garab ka hesho oo wax dhibaato aba ma ogoleen kaaga ma imaanno ayaga kugu gacan qabtay inaad fankaaga sii wadato waan gartay bal waxaad noogu sheegtaa markii aad imaatay tiyaatarkii oo markaas madax ka ahaa Maxamed Nuur Shariic yaa kaloo meesha jooga maalintaas wallahi maalintaas meesha imtixaanka laga qaaday runtii fanaaniin waaweyn baa joogtay haye عمر ولا شوقي اللهم نحرسته حسين فرح شوقي اللهم نحرسته حسن قريد بات شوقي محمد نور الشرف فلاني بدل بات شوقتي امتحان كون كان لا يتمي هسي هورو هس قرامي هسي هورا كميدا ayaan qaaday sidoo ah dareenkaaga markii ma aragtay lagu dhahay imtixaan baa laga qaadaya kabanka lagu tumay dadkii ay ku hor istaageen heesta ugu horeysay aad qaadaysay sidoo ah runtii dareenkaygu maadaama cusba fanaaniin waaweyn hortooda aan fadhiyo oo ka heesay runtii wuxuu ahaa dareen maartay xoogaa adigu xishood ku jiro ayaan ahaa laakiin waan qaaday runtii si horaas kamid oo nugul leedaan qaaday ma bal wax ma naga maqshin kartaa ereyada hadaad xasuusato waxaad heleeloy 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 hiranida wayn mahalabsadaye ya salaam nugul baa laga qaaday imtixaanka ya salaam maxay yiraahdeen marka gudigii maartay markaas jooga oo fiirsanay wallahi gudigii waa isfiiriyay waxa la ninkan waa fanaan haye tiyaatarka joog baa la yiri haye waxa la qabanaya saar galay barnaamijka saar galay qayb galisa heesaha hergale waa barnaamij ay ku tartami jireen fanaaniinta cusub aad iyo aad kooda fiicnaado ayaa ma aragtay hobaladu waa bari ama kooxaha kale waqtigaas dhisnaa bal aan sii wadno goormaa lagu ballamiyay marka inaad ka qayb gasho tartankaas aad ku weynaa runtii qiimaha badnaa oo idaacadda Soomaaliyana si toos loogu soo sidaan jiray habeenkii la qabanayo wallahi ma xasuusta tiyaatarka maraa tiyaatarka joog baa runtii haye heestii ugu horeysay aan ku galo haye waa heesta hadda albumkayga hordhiga oo ahayd fafaalo gur haye oo miraha leeyahay Yaasiin Shakhsalaad haye laxankana uu sameeyay Saalax Qaasin habeenkaas laxanka weyn ayaa sameeyay Saalax Qaasin runtaas heestaan anoo iloobay oo qurbaha markaa mid heesa badan baan deeqaaday heesa waa iloobay haye runtii inaan soo noolay heestaas ninka igu kalifay oo heestaan albumkayga inaan gundhiga uga dhigo waa fanaanka ninka dhalinyarada fanaanka weyn waa Cabdisalaan Badda Casni kiraada heeska walqa inaan soo noolayo maada ka gaadhay saaxiibkii waa salaamay runtii dib ina boorka uga jafto boorka ina uga jafo haye Cabdisalaan marka waa salaamaya iyo garabatilay runtii iyo Cabdulla Sigone oo salaamaya runtii waa dad ninka igu soo nooleeyay runtii waa asaas heeskaas ayaa Saalax Qaasin laxanka u sameeyay mirahana waxa sameeyay Sheekh Salaad asaga ku galay saar galay bal waxaad noogu warantaa habeenkaas waxaan u maleynayaa maaragtay kaliya meesha kama aad heesinin rag kale ayaa kula tartamay inta aan heesan dadweynaha u soo bandhigin waxaan rabaa horta bal inaad noo sawirto bal ragii kula tartamay yaa kamid ah habeenkaas wallahi hadda si fiican uma xusuusto runtii Cabdi Caafimaad ku jira malaynaya haye
هاس كان همينكي صدح جربة لبيس دوينة 3 times dadkii oo si qaylinaya masraxa la biisa idaacada toos uga baxay barnaamijka heesaar gala waxa aan jiray idaacadina toos uga baxo waad mahadsantahay bal inta ugu horeyso bal intaan heesta u ciyaarin dadweynaha sharafta leh caawana daawanaya sidii tooska nooga daawanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaan waxaan jeclaan lahaa bal miraha bal ay ka kooban tahay inaad 2 iyo 3 aad horta aad noo sheegto horta heesta waxaan halkan ka salaamayaa runtii albumkayga ugu dambeeyo heeskan ay hordhig u tahay horta ninkii sameeyay oo ku faraystay waa musicianka waa dhalay macalinka mulaxanka weyn iyo heesaaga waa Axmed Saalax Qaasin waa ma aragtay wiilka u dhalay fanaanka weyn Saalax Qaasin heesaaga dhan ninka tuma way runtii marka runta ku sheego marka asaga ambariyo runtii sida sharafta leh oo ana aabiisna laxanku sameeyay wiilkana dib uu kugu cusboonsiyo ku garaacay aad iyo aad bal miro bal noogu soo qaba dhowr miro bal heesta kamid ah ifafala guurso hori kuma helin sowlashadaydii unagu caashaq ma u dhalin sow ubaxan beeray isafgarad ma u dhalin aad baad u mahadsan tahay
dadkii kuma ekayn soo anfaciila cunay dadkii kuma ekayn soo aroos ay dunidu wada ammaantay mandhigin sultaanad maday rabbi adi ma noqon soo helu khayri asalkeedii may noqon soo waraysan qura afka kama tiraado soo waraysan qura afka kama tiraado markaan faro in yar kuma hirgalo sow markaan faro in yar kuma hirgalo sow idil waalidkee ducaa uma aqriyo sow idil waalidkee ducaa uma aqriyo sow dubkaan muday ubad xalaala mawdhalin sow dubkaan muday ubad xalaala mawdhalin sow idan ilaahay ayadtiin kuma helin ayadtiin kuma helin ayadtiin kuma helin ayadtiin kuma helin sowdubkaan muday wada xalaala mawdhalin sowdubkaan muday wada xalaala mawdhalin sow idan ilaahay ayadtiin kuma helin ayadtiin kuma helin ayadtiin kuma helin ayadtiin kuma helin يا سلام يا سلام يا سلام so idan ilaahay ayatiin kumaan helin runtii waxay ahayd hees erayo aada u ballaaran ama aada u weyn xambaarsanayd bal waxaad noogu warantaa habeenkaas national theatreka ayuu ka dhaceysa oo malaynayaa barnaamijkaas heesaha hirgelay waa habeenka ugu horreeya ka qaado dad aada u fara badan ayaa ku daawanayay si fiican markaad maslaxa soo istaagtay oo microfonka iyo kooxda muusiki iyo waxay isla jaan qaadeen dadweynihiina sacab iyo maaragtay biistaan ay maaragtay isla jaanta isla heleen siduu noqdo dareenkaaga adigu sidaa ahayd wallaahi dareenkayga waxay ahayd farxad aad iyo aad u weyn baahayd cabsi iyo waxaas iyo kuguma abuurin miya markaa soo istaagtay meesha maya waxaad ahayd qof oo maaragtay horay muddo u heesayo kaleeto ayaan ahaa runtii wax cabsi iyo dareen kuma gelin habeenkaas ma qiyaasi kartaa maxay kula dhigmeed wallahi habeenkaas habeen aad iyo aad u weyn baahayd farxad weyn bay ahayd yaa kaalintii koowaad ku guuleystay habeenkaas haddaad xasuusto ana heeskayga ku guuleystay faaligur anaa ku guuleystay habeenkaas adaa kaalintii koowaad ku guuleystay markaas sidaas markii waxaas ka dambeeyay ayaa hobaladu waa beri hobaladii waa beri aan ku biiray marka si toos ah adoo aada u mahadsan waxaa jiro maaragtay markaad fanka soo gelayso nin walba fanaaniin ayaa gacanta qabato oo heesihiisa iyo maaragtay mulaxanka iyo heeso badan u dhiibo abwaankee runtii aada ku caawiyey adiga wallaahi rag badan baa runtii aada i caawiyey haye yaa ka mid ahaa hanuuniye caawa xusno hanuuniye horta kow dhowr heesood uu leeyahay maaragtay ayaa qaadaa hanuuniye runtii hanuuniye saaxiibkay run way caawiyey heeso badan buu siiyey runtii haye mulaxamistayaasha saalax qaasin haye daauud runtii daawud cali masxaf oo heesahayga inta badan ninka laxamada iskale waan gartay xasan jacayl ninka la yihahdo asna fanaanka weyn mar baan fanka soo wada galnay iskulad baan ahayn haye waana abwaan waana mulaxan waana heesaa heesa badan oo cabdi maxamuud oo wadanayna waa qaaday runtii inta kabacdi riwaayadii baan ka qayb galay beena waa run riwaayadda beena waa run bal beena waa run waxaad maaragtay ka ahayd jilayaashii wax ka jiraya waxaa jirta hees la yiraahdo beenay waa run riwaayadda magaceeda maaragtay ay ku socotay heestii dhowr waxyaalood ayay isku bedeleysaa oo maaragtay waxay ka hadleysaa dhaqamo badan joogta ah dhalinyaradii waktigaas joogay bal heestii ereyadooda haddaan daawadayaasha xasuusino wax ma nooga sheegi kartaa caawo hees waxay ku bilaabmaysaa beenay waa run waa run beenay waa run
waarun barbaar dhadigiyo laboodkii baryahaan ilba xisbido guurkeedanka ka baxay kaalintiini baa bannaan haddaad naga badan tihiin garaadkiinu waa bukaa bar kuma taal baa tihiin waxaad biseen hidihii dhaqankii idinka bedelay marbiid baad naga dhigteen barkiin hindiya buu raacay waxaad barateen wax kale hooy wax kale hees marka saa u soconaysa waad mahadsantahay marka xilligaasna Michael Jackson lagu daadsanaa dhaqankii hindida Michael Jackson hindida hindidana aad loo jeclaa dhalinyaradana waxa u jiro sidii Michael Jackson beetama u jaran jireen labiska sii qaadan jiray waaga saas dhaqaas lagu daadsanaa haddaan ka soo gudubno waqtigaas waxaan u maleynayaa waqti aan wadanka u deganaa la joogay dhaqanadii socday waxaas u ah bal haddaad fiiriso maxaa is leedahay maaragtay dhaqankii ma laga wada tagaa is leedahay markaas maadaama afwaaniintii iyo fanaaniintii heese ay ka qaadeen hadda bal haddaad qiyaasto see waxaad u aragtaa wallahi dabcan runtii dadkii dhaqankii muslimtu waa sii fogaado dad badan oo ajaanib isdhexgal in dumarkeena xataa ajaanib ay guursadaan raggu xataa ajaanib guursadaan oo waa dhaqanku uu sii fogaado un markaas dad dowlad baa jirtay wax baa jiray qaran baa jiray wax un baa maaragtay daba qabasho leed maxaan jeclaan lahayn maaragtay heesta labaad dadweynahan daawanaya caawa u dheeli lahayn caawa maxaa ka mid ah heesta labaad waa jacayl aan la helayn jacayl aan la helayn yaa ku erayada waa yaasiin salaad laxanka jim shaqoomin runtii waa xiran yahay runtii laxan weyn waxaan ka codsanayaa shacabka Somaliland iyo fanaaniinteeda waqooyiga Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland in qayb wax laga qaato ninkaas sidii maartay uu soo bixi lahaa runtii xogaa dib waxba geystay baa ninkaas marka insha Allah waa ka codsanayaa hadii lahayd fanaaniinta in Soomaaliyeed ninkaas maartay arintiisa loo gurmado waxaan jeclaan lahayn maaragtay insha Allah in dadweyne badan oo maaragtay ku nool magaalada Hargeysa ay na daawanayaan caawo runtiina maaragtay runtii waa hoyga Hargeysa waa hoyga fanka waa meel aad fanka looga jecel yahay runtii aad iyo aad waad mahadsantahay waxaan jeclaan lahayn bal heestii labaad jacayl inaan dadweynaha u dheelino Hello
kaalayo kaalayo hareera adna hawsha ila qabo habka maanta ay tahay inay yahay himiladan habka maanta ay tahay taladii haboono habsamaan hoy kuma gelayno nolol kuma dhisay hadimada naftaadiyo ilaa anta aan qabo hoy kuma gelayno nolol kuma dhisay kaalayo hareera adna hawsha ila qabo kaalayo hareera adna hawsha ila qabo adna hawsha ila qabo runtii waxaan u malaynayaa jacayl aan isla wadin jacayl maaha cabdirasaaq waxaan ognahay in abwaanada badanaaba heesaha aan iska tirin waxay ku tiriyaan sheekooyin dhacay ama ayaga ha ku dhacaan ama dad ha u dhiibtaan mas leedahay heestan qiso ayay leedahay maaragtay abwaanka ma kaaga sheekeeyey sababu heestan u tiriyey runtii kama sheekeyn laakiin heeskan atinkii qasani ku fadhido qasina ku fadhido hees walba qisa ku fadhida marka la samaynayo waan gartay laakiin maaragtay wax sheeko ah kaagama sheekeenin waan ku dhiibay heestii sidii ku qaaday aad baad u mahadsan tahay runtii waxaan ognahay maaragtay fanka sidiisaba horta waa qayban badan yahay oo fanku waa balaaran yahay qaar waa jilitaan heesaagii muskiisii mulaxankii mualifkii intaba sax adiga cabdirasaaq ahaan maadaama aad muddo kusoo dhex jirto fanka adoo yarna aad soo gashay fanka runtii qaybtee ayaad is leedahay maaragtay fanka waa maaragtay ugu adag yahay
والله فنكا فنك waa qaybta fanka ugu adag haddaad rabtid runtii abwaanka mulaxanka muusishinka bal adigu qiyaas kale u adag wallahi aniga horta su-aasha hadda igu soo celishay heesaha waa dhegeystaa runtii waa kala shaqo duwan yihiin aniga aragtideeda waxaan umaleeyaa ninka markuu heesta qaadayo iyo ninka markuu jilaayo iyo ninka markuu alifayo intaba inayna kala yarasan aan u arkaa laakiin adiga fikradaadaan rabay su-aasha anaad igu soo leexisa cabdirasaaq ya adiga fikradaadaan rabay maaragta inaan ogaado bal maadaama adiga aad rugcadaa tahay oo ku dhex jirta fanka sidee tahay maaragta fanka adiga aragtidaada wallahi aniga aragtideeda ma isku wada mid baad umaleysaa oo midba mid kale kama dhacaad is leedahay runtii aniga aragtida dee tahay isku xiraha dhan ee waxaan dhan isku xiraya ninkaan miraha sameeyey mirihii qayaxan buu soo qoraya keenaya uu soo qoray ereyadii soo qoray ninka macaaneeyey ee shacabku inuu dhageysto keene waladigu waa kuma waa mulaxanka ninka isku xiraya waxaan dhan runtii mulaxanka runtii habeeneedii barnaamij baan fiirsaday aad iyo aad baan uga helay mulaxanka weyn telefishinkan barnaamij ka baxay oo ahaa ninka lahada cabdikariim faarax jir runtii ninkaas waa nin mucjisa يعني الحمد وسمي نكاس وحياله بدن بان كفايتي تاريخ الفن وحمر كسغن هذا عبد الكريم runtii waa salaamaya waa nin aad iyo aad runtii ninkaasi waa dadka aan heli doonin runtii صح marka mulxamistu ciyaar maaha ninka waxaan dhan isku xiraya heesaaga uu gudbinaya uu qaadaya ninka soo sameeyay laxanka u sameynaya maskaxdiisii shiilaya waa ninka laxanka waxaan dhan isku xiraya waan gartay cabdirasaaq runtii waxaa jirto qofka markuu yaryahay fanka uu jecel yahay adiga waa yarad fanka dad badan kaaga soo horeeyay oo Soomaaliyeed runtii dad waaweyn oo heesaa jiray adiga yaa jeclayd markaa yarad inaad dhageysato wallahi fanaaniinta dhan waa jeclaa runtii heesay qaadi jirtay markaa yarad iskooladii iyo kale marka lagu cabdirasaaq istaag maanta heesas noo qaado kale heesay qaadi jirtay horta heesa badan baan qaadi jiray runtii waa heesii hore fanaaniinta kulli ma jecla su'aalahaas inay ka jawaabaan fanaaniinta waa ogahay laakiin soo ku weydiinaya Axmed Mooge أحمد موجي محمد موجي على هسه قاعد يشتري أنت مقولي كواسات كقاعد يجتهد محمد سلابان حسن ديري اللهم نحرسته وهاي صح وش على محمد جعفر العوجي أنت اللهم نحرسته هسيس وانكو قرس الله كمان قاري يا سلام مقامين عشقي باي قوم يستيو قبل ما يقود آخره أنقالي ناينتا أنا قويني قنانا دي ما شاء الله ما شاء الله وحواي حصوص أي ما أردت آد ودير أي هاي أنا حتى ما أردت يرى أنت إذا آدم بيجي سنجري مكان يرى runtii waxaan ogsoonahay fanka iyo isboortiga in ay yihiin wax mataano ah sideeda aniga si fiican inaan wax ma aragtay wax kala dheer inuusan ahayn sax macnaha kan isboortiga ciyaaro fanka wuu jecel yahay sax ninka fanaanka ahna isboortiga wuu jecel yahay ha isboortiga waa fankuna waa isboorti ma kala maarmaan labada kala maarmaan waa wax mataano bal adiga isboortiga waad jeceshaan jeclahay si fiican bal haddaan u noqdo bal intaanan usoo noqon waayadii barisamaadka oo dalkii aan joogna naadiye badanaa ka dhisnaa naadiye aad taageer u ahaan jirtay aniga waa naadigan taageero u ahaa waa la yaqaana haye fanaaniinteena anaga ninba koox buu taageero u ahaa haye aniga iyo sangub iyo haye faynuus sheekh daahiriyo horseed baanu ahayn haye waa ciidamada qalabka sida ciidanka qalabka sida iyo cabdidhuux yuusuf iyo haye xasan aadaniyana madbacadda ahaayeen khadra daahiriyo MBC club ahaay haye شيء يعقوين ركب على شري سيدا معلوه وكلاته يا محمد معلوه وكلاته جيو محمد معلوه وجيو وين قرتي وانكسر تقنا ودنكي دول كان شيء إيمانه سبورتي وافرستان إن شاء الله سفعا نادي تاجرت هذا أنا كان نادي تاجر وأرسنال تاجرت أنا أرسنال runtii waxaad ku jeclaatay qaabka ciyaaroodka aad iyo aad waad mahadsan tahay bal inta aan maaragtay maadaama dadka ay kaa sugayaan heeso badan runtii aan jecelnahay maaragtay inaan waxyaalo badan adiga maaragtay hubigaaga iyo wax walba inaan ku weydiino aan jecelnahay aan ka faa'iidaysano barnaamijkan qaaliga aad nagu soo booqatay caawa heestee ayaan maaragtay u doornaa mise anaa dooro maaragtay ada bal adigu door wishow bal haddaan dooqiga ciyaaro caawa waxaan jeclaan lahaa
heesta la yiraahdo Zahra saaray dhuuxiyo lafti ha bal Zahra waxaan u maleeyaa maarad waa gabar magaceed aad iyo aad heestan Maxay gabar ku dhacday? saara liyaad halkan joogto saara daahir mir la ilaalo sameeyay heeskan haye waxaa samaysay dhoofa qalib siyaad runtii abwaanad weyna aa samaysay ha laxankana cali shaacir baa iskale laxanka waxaa iskale xasan dhoof dhuxul waxaan u maleynaa xamar ku noosho xasan dhuxul laab salax baa iskale Haye. dhoofa Nairobi joogtaa Nairobi ha sax waan marka heeskan waxa weeye saray dhuuxiyo laftii saray Soomaali dhaba adaa marin dhalaal dhamooy midabkaagu yahay ما شاء الله waxaan u maleynayaa saarooyin badan caawa inay maaragtay Ah. ay istaagi doonaan si fiican ku soo dhawaada heesi Zahra iyo alfanaan Cabdirasaaq Gaadaco saray dhuuxiyo laftii saray Soomaali dhaba adaa marin dhalaal dhamooy midabkaagu yahay saray dhuuxiyo laftii saray Soomaali dhaba adaa marin dhalaal dhamooy midabkaagu yahay ay saarantayo careedu dhexdooda ada dhugashada lamida dhulkaaguna waa galmudug dhabtii waxaa tahay gobow dhaman nagaa ku jee dhabtii waxaa tahay gobow dhaman nagaa ku jee waxaan ku dhignay ubax mayska dhexdiisa iyo ku yaal dhinayada badda dhabtii waxaa tahay gobow dhaman inagaa ku jee dhabtii waxaa tahay gobow dhaman inagaa ku jee waxaan ku dhiibnay ubax mayska dhexdiisa iyo ku yaal dhinayada badda
abaal baan kaaga dhigay waxaan dheeldheelahay inaad dhiigayga tahay taariikhdii la dhaafayo dhacdiyo magacan lahaa haddaa diiwaan ku dhigayo adaa dhaxalkayga qoray Soomaali adaa u dhigay inaan dhiiranaha taariikhdii la dhaafayo dhacdiyo magacan lahaa haddaa diiwaan ku dhigayo adaa dhaxalkayga qoray Soomaali adaa u dhigay inaan dhiiranaha dhabtii waxaad tahay gobow dhaman inaga kujiye dhabtii waxaad tahay gobow dhaman inaga kujiye waxaan ku dhiiday ubax 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 dhamayska dhexdiisa iyo ku yaal dhinacayada bartaha dhabtii waxaad tahay gobow dhaman inaga kujiye dhabtii waxaad tahay gobow dhaman inaga kujiye waxaan ku dhiibay ubax 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 dhamayska dhexdiisa iyo ku yaal dhinacayada bartaha dhamayska dhexdiisa iyo ku yaal dhinacayada bartaha waxaan kuu dhiiba ubax iyo meeska dhexdiisa iyo ku yaal dhinacyada bardacad bardacad Dhinacyada waxaa la bardacad. ceel Haye. gaalkacyo ku yaala haye oo biyaha laga cabo Haye. marka waxaa la oran jiray ilka gududana maceelka bardacad bu soo cabay Qofka ilka gududan. ilkaha gududan Anaga ilka casaan dhalaa Ah, maaragtay. marka Haye. yamayskuna gaalkacyo ku yaala waa meel caana oo lagu Gartay. dabaasho sida webi camal ah gartay waxaan u yamayska malaynaya- gaalkacyoda layahay waxaan u malaynayaa dooqeyga inay dadweynaha na daawanaya aada uga heleen Ah. bal aan ka gudubno heestaasi macaane Zahra Ah. waxaa jirta maadaama aad tahay nin fanaan ah qurbo joog macnaha dalkii ku noolaa muddo badan Ah. muddo badan dagaaladii xataa kusoo noolaa wuu soo baxday wadankan ayaa imaatay Ah. dalka ingiriiska sax maxaa kugu yaabka badnaa muddooyinkan dambe oo aada la yaabtay ama kaa quslisiiyey ama kaa yaabiyey inta aad ma aragtay meelaha wareegeysa wallahi ne waxa igu yaaban waxyaalaha qurbada ingiriiska u imid haye waxaa kamid ah stress baa haya haye stress haye stress waxaa la dhahay ha dadka Haye. waxa kule stress baa haya kule qofka Haye. war stress waa maxay haye stress waa qofka maartay qof isla hadla kaligiis macnaha stress wadankeena waxyaalaha ugu lagama yaabka aqoonin. badnaa qurbaha ku arkay stress qabadi haye bisi wadankeena baa lagama lagu aqoonin. leeyahay haye bisi baa la garabis haye stress baa haya maqlaysa bisi Haye. baa maqlay waxyaalaha kamid badan ku arkay meesha fiiradii aad ka lahayd Markaan- markaad imaatay inta aragtidii aad qabtay markaad ka soo baxdo wadankii inta sidee ma aragtay ma kala duwanaayeen ma sidaa aragtidii aad qabtay inta ku imaatay oo picturekii aad markii hore africa aad joogta aad ku haystaa intana ma aragtay markaad imaata aad aragtay maya maya haye waa kala boqolkiiba boqol waa kala gedisay haye firadda wadanka marka haystay ha runtii waa ka duwaneed waa ka duwaneyd Haye. inta markaa imidna dee weji kale haye waa ka isku nooc maa wadankaaga adduunka wax ka wanaagsan mare waad Ilaahay nabad ha mahadsantahay nooga su-aal kale aan runtii aan ogahay inaad jeclaysanayn baan ku weydiinaya haye waxaan ognahay maaragtay fanaaniin badan oo da-yar ah, maaragtay inay soo baxeen Aad iyo aad. qurbo joogti aad iyo aad wadamadan aan joogno ha yaa jecesha inaad dhegeysato wallaahi niyow kulli dhalinyarada waa wada jeclaha runtii laakiin si gaar ah inaad dhegeysto ha si gaar ayaad u Fanaaniinta- dhegeysataa as leedahay maaragtay waad codkaas maaragtay waad jeceshahay maaragtay si gaar u dhegeysataa ilan kulli waa la wada jecel yahay Wallaahi. laakiin waxaa laga yaabaa qof iyo labo inaad sii jeceshahay waan ogahay inay su-aasha adag tahay balse wallaahi wiisha su-aal adag baad weydiisay dhalinyarada fanaaniinta runtii waa wada haye jeclaha
runtii haddii wadankoodii nabad ahaan lahaana maanta oo wadankii ay joogi lahaayeen dhalinyaro badan oo gabdhiya wiilale oo talentii baa jira runtii jaanisku hadday helaan heerkii ay gaareen waa beri gaari lahaayeen waad mahadsan waa tahay kulli oo heesahooda waa wada dhegeysta waa jecla waxaan u malaynayaa si Aad baan u diblomaasi ah jeclahay. oo siyaasad aad jawaabtaas maaragtay uga si fiican, jawaabtay si fiican. haddaan ka baxno aan dhanka kale maaragtay aadno runtii waxaad kusoo barbaartay golihii murtida madadaalada Sax. waxaa ku dhac burbur aad iyo aad u weyn si fiican runtii waad aragtay hadda ayaan dhaweyd week ka hor mise toban beri ka hor in madaxweynaha soomaaliya uu dib u furay macnaha uu qashinkii asaga qaaday sidee u aragtay maaragtay aragtidaada fanaan ahaan maxaad dareentay markaa aragtay madaxweynihii oo dib boorka ugu jafayo tiyaatarkii soomaaliya asagii wasiirkiisa warfaafinta wallaahi fanaaniinta fanaaniinta wada joogaan fanaaniinta meel kastaba ha joogaan runtii golaha murtida madaalada meeshii waxay ababka soomaaliya fankii soomaaliya haye maskaxdii soomaaliya waa haye dowladdii soomaaliyeed meesha laga hogaamin jira halkaasi ahayd haye fanaaniintu wacyiga jiray ka hadlaan runtii haye adduunka waxa ku socda waa media haye marka fanku waa laf dhabarka koobaad haye runtii haddii dowladdan kumeel gaarka ay fakartay in tiyaatarka dib ay usoo noolayso annaga aad iyo aad farxad weyn bay noo tahay fanaaniintii soomaaliyeed oo dalkii ku noolada runtii rag badan aan aqaana ka arkaa maalinta dhaweyd aad baan u farxay sida markaan arkay cabdidhoox oo kaleeto haye marka xaaji banaadir oo kale haye axmed dee cabdigaashaan faarax siidow siciid xarawo haye wallaahi barow marwo xeebow xeebow siciid daawud runtii wiilkaygii waa siciid daawud haye wallaahi fanka aad aan u farxay siciid daawud runtii meeshuu ka gaaray fanka farxad weyn fanaan dhalay waa aabiis waa mulaxanka weyn baa dhalay haye marka siciid daawud waxaan leeyahay anigu isagu waa isla soo jabna runtii 10 sano isaga aabiis marka waxaan leeyahay fankaaga meeshaad marsiinaysa kasii horumarsii waxaan u malaynayaa maaragtay inaan dadweynaha hadal u baahnayn balse ay jecel yihiin in laga qabtiro heesahaaga macaanaa heestee is leedahay maaragtay waad u dooreysaa maaragtay waraahi wiishow aniga runtii aniga dooqayga adiga dookaaga waa goon anigu heesaan rabay laakiin adigu ma rabtid inaad u dooro heeskaasi waxaan rabay sartaa laga gaboaba seeda iyo hilibkii haye wadnihii jacayl sare samarku ma ladnaadee barnaamijyo kale ayaan kusoo qaadan doonaa sancadaad yaraan baratana sirqanimo dayside waxay kula sugtaa geeri adigoo sidii ah heestaasaan rabay runtii laakiin hadda dadweynaha waxaan u doorayaa hees cusub haye oo leedahay hamiga damaca hankiyo jacaylkaa hogaamiya hankiyo qalbigeygiiba adiga ku ah garbaxee haweenka dartaa markaan ka jaray haasaawihii hibada eebbe iyo calaf markaan isku hananay guur ereyadii xasan maxamed maxamuud xasan jacayl laxanka yaa saare laxanka waa xasan muusiga waa axmed saalax qaasim naaji kusoo dhawow
واسد وين عمو كستاوت قبتنا متباشرة على عونينو ونقالي مالي عدلينو حكايقة كلي كتاي وبسين مادو واسد وين عمو كستاوت قبتنا متباشرة على عونينو ونقالي مالي عدلينو وما شكيو دحقلي حاجة دقن كينا وما شكيو دحقلي حاجة دقن كينا أو كير يدعوني هنقول مذهبه سنو أو كير يدعوني هنقول مذهبه سنو أبينا قيرو ترو وقاكنا وشرقنا وما شكيو دحقلي حاجة دقن كينا وما شكيو دحقلي حاجة دقن كينا أو كير يدعوني هنقول مذهبه سنو أو كير يدعوني هنقول مذهبه سنو أبينا قيرو ترو وقاكنا وشرقنا أبينا قيرو وترو وقاكنا وشرقنا أبينا قيرو ترو وقاكنا وشرقنا ya salaam oorkii heryada cuno ha noqon mid habowsano habeen aakhira u turo Haye. orgaankuna waa sharciga waxaad u malaysaa cabdirasaaq markaa qaadaysidba in ma aragtay qisada waxaan u maleeyayba in adig kugu saabsan tahayba ninka hadlayo oo la hadlaya gabadh inuu adiga tahaba maxaa ka jira maya aniga ma aniga ma hadda dareenkaaga iyo shucuurta kaa muuqato laakiin heesku markaan arkay waxaan sameeyay saaxiibka cabdirasaaq heesku waa qiso jirta haye waa kaasaa marka macnaha mar rabo inaan kuusii taataab saaxiib haye waa qiso dhab ah waay oo shucuurta sheekada wax ka ogtahay adiga waan kuu maleeyayba maya aniga maahan waa lagu wasama okay aan ka gudubno heestaas hami iyo fanaankii cabdirasaaq gaadaco runtii cabdirasaaq waxaa jiro nin walbo mar ayuu fanka soo galaa sax markaa fanka soo galayso baladu waa beri kusoo biiraysay waxaa dhici karta in fanaaniin badan isku waqti eedeen yaad ka xasuusataa fanaaniinta aad isku waqtiga soo gasheen wallaahi fanaanintii aan iskuladka ahayn waxaan ka xasuusanahay ilaahay ha u naxariista axmed ishaar cabdi olol cabdirasaaq xasan cali kuukaay allah u naxariisto cabdi baadil ibraahim hadda jarmal ku nool yahay saaxiibkay aad baan u salaamayaa cabdi baadil anigana waa saaxiibkii waa salaamaya saare abukar cabdi saare dawo maraykanka joogtaa waa salaamaya iyada cabdinuur darjir xabiiba xasan toxow binti cumar gacal saciid khalif cali asagana jarmalka ku nool runtii dhalinyaro badan ayaan isku ladnahayn howladii waa beri aan iskula jirnay riwaayad ma beenay waa run iyo riwaayado kalaa ka qayb qaadatay aad iyo aad heesa badan baan qaaday heesaha kelida ah oo maaragtay lagu sameeyo iyo heesaha riwaayadaha ka qaaday yaa tiro badnaa waxaa tiro badan heesaha kelida abwaanka kugu badnaa heeso hadda waxaan soo wadaa albumkaygii ugu dambeeyey aan fanka kusoo xiri doono haddii lahaydmo insha allah albumka markaa soo saarayna fanka waa soo xiraya albumkan heesaha runtii ku jira 4 hees oo kamida oo cusub yihiin
waxaa laxmada sameeyey daawud cali masxaf miraha waxaa sameeyey nin dhalinyaraha runtii halkan jooga ilaado cali siiko ayaa waan naqli doonaa insha allah barnaamijyada kale ayaan kusoo qaadan doonaa maadaama aad tahay heese badan ayaa jira runtii cusub oo runtii caawi dadweynaha halkan aan ugu soo bandhigi karin sida heesta deeqo kaleeto uu sameeyey abwaanka Siciid Shaabo kale ilka jir hay deeqo deeqa le waan jeclaan lahaa marka hore deeqay salan diirano wacan ya salaam oo dibad ka timid baan ya salaam ku soo diraya adiga dalkiyo dadkaagii dhex joogo damashii hargeysiyo burco dacaladeediyo ilaa daala gaaro degmadii adoontaba u dalxiis tagaaye maasha allah heesaas waxaan malaynaya in aniga si toosa igu socoto si fiican qurbahaas ka hadlaysa waxaan kuu sheegayaa maarata cabdirasaaq waxaa jira maadaama aad tahay fanaan fanaanad gobolada waa beri kusoo jiray runtii koox muusig tumeysa heese kasoo dhex qaaday kooxdii live muusig ku tumeysa aad iyo aad haddana qurbaad joogtaa lama helayo maarata jaanisadii markii hore la heli jiray abadan bal haddaad qiimeyso fankii waayadii hore markay kooxda kuu tumeyso iyo hadda aad sidii wadato aad ku tuuranayso kee qiimo badan wallaahi waxaa qiimo badan markay kooxdii tirada badnayd ay ku tumaysa music haye waxay ku kala duwan garbahaaga markuu hal qof music la taagan yahay oo tumayo haye iyo markii masraxa intaasoo qof taaganta ay tumayso runtii isku mid maaha haye kaasaa qurux badan lama heli karo masraxii aad taagan tahay haye ya taas mid la heli kara maaha macnaha way ka qurux badan tahay markaas aad iyo aad inkastoo fanki way ka raaxa badan tahay inkastoo fanki hadda technology noqday oo wixii oo dhan hadda meel baa lagu soo koobay haye wixii oo dhan hadda waxa ku soo koobmay keyboard balki Ahmed Saalax Maxamed Karaama Farayare Bashir Hanuuniye Jimmy dad badan oo maartay runtii musishiya badan oo khatar jira Cabdiwahaab Cantarnaaji ma fahanti marka music hadda waxba noqdayba wax meel la isku keeno sidii lagu soo wixii dhamma meel baa isku geeyay oo sidii qofku qaato abadan music tirada badan oo la tumaya wax ka macaan ma jiraan waad mahadsan tahay fanka marka waxaad isleedahay maaragtay hadda sidoo kuu leeyahay fanki Soomaaliyeed maadaama 20 sano burbur badan wadanka ku dhacay misleedahay fanki Soomaaliyeed uu horumaray ma haye runtii ma horumarin dib baan dhacnaa isleedahay fanki Soomaaliyeed wax uu horumaray fan masraxiisii jiridiisii ruwaadihiisii abwaanadiisii musishinkiisii laxamiistayaashii heesaagiiyo haystu ahaa marka lama helaa runtii kaasoo kale ma soo mari doono waad mahadsan tahay runtii muusiga casriga waa horumar lafteeda ogow muusigan badan oo halka meel la isugu keenay balse laakiin still fanaanku wuxuu ku raaxaysanayaa oo ku raax jecel yahay maaragtay markii sida Maxamed Karaama sida Ahmed Saalax Maxamed Karaama kulli Cabdixakiim ma kala dhacaan kulli Cabdishir Hanuuniye waxaan leeyahay runtii aad dadaal weyn waa runtii wax sameeyeen wax wanaagsan wey balse laakiin se weli fanaanku wuxuu u baahan yahay maaragtay kooxdii masraxi aad iyo aad lama heli karo waan rajeynaynaa insha allah billahi alkarim nabadda hadda socoto oo maaragtay ilaahay inuu noo adkeeyo si aan dib wadankeena ugu laabano oo maslaxii dib loogu koro anagoo oo jecel in barnaamijkeeni uu gabagabo ku dhow yahay maxaad kula talineed horta fanaaniinta da'da yar ee qurbaha fanka ku bilowday aragtidaada adiga maadaama aad tahay fanaan weyn oo baladu waa beri kusoo barbaaray adoo dhalinyaro ah fanka soo gashay oo yar ilaa hadda fanka soo jiray adoo fursaddan ugu faa'iideynayso maxaad kula talineed runtii wishow fanaaniinta horena waa ku jiraa kuwa dhaxna waa ku jirtaa kuwa dambana waa ku jirtaa dhalinyarada yarana waa ka tirsan anigu laakiin markaas kulligood saaxiibaan la fanaaniinta ugu yeeraay kulligood saaxiibaan la ahay kull runtii wada talent dhalinyaraha ku jirta waxaan leeyahay dhalinyarada yararka inay dadaalaan runtii heesa cusub sameeya horta waa loo baahan yahay si hore in la qaado anigu qofkan jeclahay fanaanka heeska waa qaada anigu heesaaga in la qaada raalli baan ku ah fanaaniinta horeba heesaa waa kala qaadi jireen qofkaa jeclay siyaasiis hal qaadi laakiin dhalinyarada waxaan kula dardaarmaa inay heesa maaragtay cusubna runtii ku daraan ay soo saaraan runtii dad aad iyo aad gabdho iyo wiilal waxaa jira talentii sida Farxi Fiska oo kale waa aragtay Aamine Dhool oo kaleeto Nimc Dareen oo kale waa aragtay Jahaan oo kaleeto wiilasha Cabdifataax waa aragtay Ikraan Caraale waa aragtay ninka la yiraahdo muxuu ahaa Abtaxyare waa aragtay waa talentii ninka la yiraahdo Faad Cumar
dhalinyaro badan cabdisalaan waa fanaaniinta hore cabdisalaan badda cas ciyaaraha malayn haye may fahanti haye waa fanaan runtii dhalinyaro waa talent yaa jira marka waxaan leeyahay hees dhalinyarada waxaan ka codsanayaa inay heesa cusubna sameeyaan dadaalaan ku horena ay qaadaan kuwan dambana kuwii horena in la soo nooleeyo runtii fanaaniinta xusaan fanaankii hore u qaadi jiray fanaaniinta in la xuso sida uu hadda ka hor ka dhawaajiyay al-ustaas axmed naaji oo kale uu ku taliyay runtii annaga ixtiraam baan isku leenahay fanaanka ka wen yahay sax inuu ixtiraamo anaga fanaaniintii iga waaweyneyd waad ixtiraamsantahay waa ixtiraam baa naga dhexeeya cabdiqaadir jubbana waa salaamaya saaxiibkii runtii sax oo fankii aan isku fanaaniintii waa beris la ahayn in fanaaniintii la is ixtiraamo oo fanaaniintii waaweyneed hore fanaaniinta yar ixtiraamaan runtii waa loo baahaya runtii ixtiraamka fanku wuxuu leeyahay in la ixtiraamo runtii lama heli doono fanaaniinteena waaweyneed taariikhda fanka ay ku lahaayeen waad mahadsan tahay annagoo rabna horta bal intaan heestii ugu dambeyso oo gunaanudka aan ugu talagalna caawo ayaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo heestas waa hees caan ah runtii waxaa qaada fanaanin badan oo da-yar ah waa heesta la yiraahdo oomba biyaha loo cabaa umatana gaajo heestaas adigaa lahaa marka ugu horeysa yaa kuu sameeyey yaa ku alifam laxankana yaa saaray saaxiib heestan 86 haye baan heeskan qaaday haye 1986 haye erayada iyo laxankaba mahada ka gaartay waxaa iskale cabdalla yuusuf hanuuniye haye marka horena waxaan heestan qaab gabay u sameeyey ninkan haye gabaygii marka hees ka dhigay haye marka hanuuniye runtii waa nin dhalinyarada soo saaridda runtii qayb wax ka qaatay heesaha heshiisihiisa oo hanuuniye heesa badan buu sameeyey dhalinyarada u dhiibi jiray sida la yaabin waaya iyo wixii yimaadaba hayaraysan caashaqa yeelaha wawjarin hees kaloo yaa anigana ii sameeyey la yaab maxaad yeeri doontaa muddo aan yaray baan ku yeeranayay heesa badan buu leeyahay hanuuniye runtii waana heesa mualif ah mulxamiisana cashaqii dhabtaha ima dhigina awga weli wuu idhibayaa nafku dhowranayso ka daba dhaqaaqdo halisuga la dhaadhacay dheeraa waxyeeladu ma midaan dhammaanba aad baad u mahadsan tahay adoo fursadan qaaliga ah ka faaideysanayso telefishinka qaranka uu ku siiyey anoo jeclaa hees kale oo dadweynaha runtii sida dadka waaweyn heestaas barnaamijyo kale ayaan kusoo qaadanayna balse hees waxaa jiro dadka waaweyn aad u xiiseeyaan meelo badan aad tagtan laga codsado oo dollar la dhahayo yaa duulay heesta isxambaarka heestaas dadka aad buu u jecel runtii heeskan Soomaaliya lagu sameeyay dadka laakiin waxaa qurbaan yaa sameeyay heestaas heeska waxaa sameeyay cabdi maxamed amiin allah naxariisto haye dhibaato taagneed markaas laxankana daawud cali masxafa sameeyay xilligii isxambaarka 1998 uu sameeyay heeskan intaana wadan ka soo bixin waad mahadsantahay inkastoo waxaan maaragtay dad badan oo caawana daawanayo cabdirasaaqna yaqaano heestaas runtii aad u jeclaan lahaa in la qaado waan ka raali gelinaynaa insha allah waxaan jeclaan lahaa barnaamijyo kale inuu cabdirasaaq inoo qaadi doono allah awoodda la hadduu ka raali noqdo adoo ka faaideysanayso yaad halkan ka salaami lahayd maadaama aad tahay fanaan weyn oo caana la yaqaano barnaamijkan gabagabadiisa waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waan salaamayaa horta asxaabtayda oo dhan runtii lama soo koobi karo ana magacyadoodana ma tirin karo mana soo koobi karo runtii fanaaniinta waan salaamayaa fanaaniintii horta haddaan ka soo bilaabo waa beri fanaaniintii waa beri kuwii Somaliland jooga kuwa xamar jooga Soomaaliga waan salaamayaa kuwii xamar jooga Cabdiluux Yuusuf baan salaamayaa waxaan salaamayaa Marwa Cabdi Axmed waxaan salaamayaa Axmedey Cabdi Gaashaan waxaan salaamayaa Maki Xaaji Banaadir waxaan salaamayaa Cabdi Yuusuf Xasan Cabdi Dhuux Saciid Maxamed Cali Saciid Xarawo Maxamed Xasan Barrow Saciid Daawud runtii fanaaniintii xamarna waan salaamayaa Xeebow kulligood waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa fanaaniintii Somaliland jooga Maxamed Aadan Dacar Qadar Daahir Shamis Abukar hooyadii fanka Soomaaliyeed Gaduudo waxaan salaamayaa hooyadii kale Qadisha Cabdullaahi Cali Dalays Harada Ismaaciil Duniyo xasan aadan salaad maxamed shardi fanaaniinta dhalinyarada asxaabteyda oo dhan kulli waa salaamaya faysal yare waa salaamaya saaxiibkay qaaliga faysal yare axmed saalax si gooniya runtii qayb laba ninka fankay ka qaatay heesahaygan tumay wey inta badan ninka tumay waa runtii
saalax qaasim waa salaamaya fanaaniintu dhan waa salaamaya cabdisalaam badda cas waa salaamaya garabaatiley dhalinyarada dhan kulligood waa salaamaya horena waa u salaamay fanaaniinta Soomaaliya meel kastoo aan joogtana waa salaamaya caruurteydana waa salaamaya iyo hooyadoodna waa salaamaya Faadumo Gooyana waa si gooni qaas ah u salaamaya ma sha Allah ilmahaygana waa salaamaya hooyadoodna iyagana waa salaamaya aad baad u mahadsantahay Cabdirasaaq Gaadaco sida sharafta leh barnaamijkan ma aragtay waxaan ka iloobay dhawaan waxaan soo saari doonaa heesihii hore oo qaraamiga ah oo la casriyay oo uu tumi doono aabaha weyn aabaha fanka waa Ismaaciil Maxamed Ismaaciil Xudeydi ayaan dhawaan soo saari doonaa runtii asagaana igu dhaliyay heesihii hore oo qaraamiga ah inaan soo cusboonaysiiyo oo aan qaado runtii waan ku faraxsanahay aabaha waana salaamaya Xudeydi aad baad u mahadsantahay waxaan u dheelaynaa heestii oomba biyaha loo cabaa ummatana gaajo ku soo dhawaada waxaan u malaynayaa ma aragtay xagga farsamada darteed heestii hore uu ku soo celiyey waxaan rajeynayaa cabdirasaaq waxaan u malaynayaa ma aragtay heestii ifafaalo ayaa nagu soo noqotay waxaan rajeynayaa ma aragtay inuu farsamo yaqaanku noo saxo oo u dheelo heesta oomba biyaha loo cabaa soo dhawaada oomba biyaha loo cabaayo fanaan Cabdirasaaq Gaadaco
waa quruxsan ayaad leedaho unku ku hiraye oo weliyadoo kale aragaha ma saarine oo weliyadoo kale aragaha ma saarine oo nugyada jirkayga tiyo udubudhaxaadkiye oo nugyada jirkayga tiyo udubudhaxaadkiye allaydankiyo amine hayna kula siiso allaydankiyo amine hayna kula siiso aad ayaad u mahadsan tahay oonba biyaha loo cabaa matana gaajo ayaa waxaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii xiisaha badnaa ee xidigaha uu martida igu ahaa fanaanka weyn cabdirasaaq axmed faarax gaadoco. cabdirasaaq waxaan umaleynaya intaan barnaamij ka bixin waxbaad ii sheegeysay. saaxiib ha waa horta dhalinyaro saaxiiba aan salaamin baa jira ilkajiil iyo waa kamid yihiin maxamuud cumariya waa salaamaya fanaaniinta intaa ilooban dee waa kaas way ku cafinayaan laakiin si gooniya waxaan tacsi ugu dirayaa cabdixakiin ciise farayare oo hooyadii isku dhimatay Uganda. waxaan kaloo u tacsinayaa maxamed karaamo iyo reer karaamo oo dhan waa habriirtood ku dhimatay iyadana Sacuudiga. aad baad u mahadsan tahay. halkaas ayaa waxaan inoogu dhamaaday barnaamijkeena xidigaha uu martida inoogu ahaa fanaankeena weyn ee gobolada waabari qaranka Soomaaliyeed cabdirasaaq gaadoco. waa anigoo ah wiish xagga farsamadana waxaa idinka caawinayay oo aad iga caawinayay abukramaas. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo.